anigu nin fanaan ahay gabadha la yiraahdo ilaahay alxamdulillah iyo adiga maxaa idinka dhaxeeya waxaan fan ahayn iyo walaalnimo oo gabadha naga dhaxeeya ma jiraan cidii doonaysa inuu xiriir naga dhaxeeyo nagama dhaxeeyo walaal gabadha waa gabadh walaashaya waa fanaanad anigu nin fanaan baan ahay family man baan ahay nin qoysle baan ahay waliba sodon ku socdo dacayda ahliga daayo saaxiibayaal waxaan idin haynaa warbixin dhammaystiran oo ka hadlaysa mursal miise oo ka hadlaya inuusan waxba ka jirin xiriirka been abuurka lagu been abuuray baraha bulshada muddo ugu dambeeya dhex socday ee ka dhexeeya mursal muuse iyo xamdi bilan kaasi oo ku sheegay waxba kama jiraan balse saaxiibintan muuqaalka oo dhammaystiran gudagal waxaan ka codsanayaa inaad video like saarto si la share garayso kala barteen YouTube-ka aad subscribe ku sameyso Cabdirdeeqsi kameelka ka furasay ku dhaafay muuqaalada qurux badan soo gal barteen YouTube saaxiibkayga sharafta iyo qiimaha la wad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan waxaan ugu sameeyay inaad video like noo saarto si la share garayso kala barteen YouTube kana subscribe nagu sameyso waayo subscribe tan waxayna shuruudahan buuxinay like iyo share tan waxayna yeedhiin waxay sii gaarsiinaysaa saaxiib wanaagsan si idinka oo kale inay sii gaaraan muuqaalada laakiin waxaan maanta idin haynaa warbixin dhammaystiran ka hadlaysa xamdi bilan iyo mursal muuse intii waxba ka dhaxayn ayna ahayd wixii muddada badan ba baraha bulshada la dhex socday inay wax been abuur oo waxba aysan ka jirin fanaanka mursal muuse oo ku sugan magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti ayaa sheegay inuusan waxba ka dhaxaynin isaga iyo fanaanada caanka ah xamdi bilan haween yahay nin sodog ah amba family la oo ay xaaskiisa dhabti tahay hodan cabdiraxmaan oo garan ogtiin oo ay ka qaaday iyaduna isla fanaanadii hore ee qadar sinima taasi oo muddo badan hays qabeen mursal muuse wuxuu soo kale sheegay mursal muuse inay abwangeesi iyo xamdi bilan ay yihiin laba qof oo xiriir muddo dheer ka dhaxeeyay soo jireena taasi oo isagana ay tahay in lagu kaco amba la yiraahdo waxa guursanaya mursal muuse amba isaga ayaa ka daba carreeyay tahay aflagaadi iyo falxuma xamdi bilan wuxuu ku sheegay inay tahay gabadh walaashiya oo fanaanada aan isla yahay fanaan fanka mooyaan wax kale oo ka dhaxayn karaan oo san jirin waxna ka dhaxayn hawla jecelahay fanaantiisa amba xaaskiisa ay waqtigan qabaan ee hodan cabdiraxmaan taasi oo nolosha ku midoobeen amba hay waqti fiican soo qaateen oo ah ciyaalkiisa hooyadii halkaas oo iyaduna ka soo jeedo baysto passportka dalka Mareykanka kaasi oo ah passport aad u qaali marka loo eego passportada adduunka waxaana soo kale muddooyinkii ugu sanadihii la soo dhaafay lagu cambaarey jiray in mursal muuse u galay hodan cabdiraxmaan oo uga tagay qatar silmo passportka Mareykanka soo helo kaasna uu ahaa falka kaliya ugu dhaqaaqay inuu ka tago xaaskiisii hore oo hodan cabdiraxmaan raaco taasina waxay cadcad iyo barabagaado noqotay markii mursal muuse gabi ahaanba ka hadli waayay arrintaasi waxa sidoo kale imika uu sugaya passportka inuu helo waayo waxa xilka ka tagay madaxweynaha hore ee muslimiinta mamnuucay anigu nin fanaan ahay gabadha la yiraahdo ilaahay alxamdulillah iyo adiga maxaa idinka dhaxeeya waxaan fan ahayn iyo walaalnimo oo gabadha naga dhaxeeya ma jiraan cidii doonaysa inuu xiriir naga dhaxeeyo nagama dhaxeeyo walaal gabadha waa gabadh walaashaya waa fanaanad anigu nin fanaan baan ahay family man baan ahay nin qoysle baan ahay waliba sodon ku socdo dacayda ahliga daayo dad wada maqlaysay buu codsayn dacayda laga daayo propaganda loo galay baraha bulshada mursal muuse waxa uu ahaa fanaan in badan ka soo jiray balse waxa uu guursaday qadar silima oo ay yaraantiisii nolosha soo wada qayb sameeyeen amba ay isku jeclaadeen sida uu afkiisa ka sheegay video ay wada sameeyeen isla waqti habeen waqti damba ah kaasi oo jacayl wanaagsan ka dhex abuuray balse ugu dambeyntii waxa ka qaaday gabi ahaanba oo boos ka riixatay hodan cabdiraxmaan oo ay fanaanad haysata passportka ariga Mareykanka kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyna uu sugayo dhoofkaasi oo aad u jeclay inuu tago Mareykanka balse waxay taasi booska ka baxday markii uu madaxweynaha xilliga xalka ka degay Mr. John Trump oo qabsaday xilkaasi madaxweynimada oo mamnuucay 7 dal oo muslimiin ah ku jirta Soomaaliya oo ku sheegay inaysan haba yaraatay soo gali karin gudaha dalka Mareykanka balse taasi waxay wajiga gabax iyo foolxumo ku noqotay mursal oo waxa kala taagay inuu mar uu tago magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Mareykanka halkaas oo nolol qurux badan oo ku qaadan lahaa waqtigiisa iyo waqtiyada dambe ee soo socda taas bedelkeeda waxa hadan xilkii ka degay madaxweynihii oo looga adkaaday waxaana ka adkaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Mr. Joe Biden kaasi oo imika ah madaxweynaha rasmiga ah ee Mareykanka isagoo cunaqabateyntii amba xayiraadina ka qaaday 7 dal ay ka jirtay Soomaaliya oo maanta qofka Soomaaliga ee passport Mareykan haysta ayaa si toos ah uga bixi karo magaalada muqdisho oo ku nintay karo magaalada caasimadda ee Washington DC isagoo oo si qurux badan ugu raaxaysan doona wuxuuna mursal muuse sugaya inuu ka baxo isla wadanka Djibouti oo hadda ku sugayahay hawna tagi doono magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka aba California meesha uu ka jeclaado ama uu isagu degan tahay xaaskiisa hadan hodan cabdiraxmaan
سكول هذا عبد الرحمن ياخد سي إن يوتيوبردا أما تدك يوتيوب استعمالها برامج هذا استعمالها فالفرحة كأن سوق الولي يوتيوبر ليده هوا أو بدنا رئيس كبحية أو كميديا سي كيترس لعب دي يولي إن شنو عليه هي كوكعين فالروح نطرح كاسيو يوتيوب أو لها سوماليات فنانين أنا أمير أوقات عين كرهنا ولا جدي حمد بلان سوق الله هاي سي كذا مرسل كوكفين أو شيء إنه يتعي وحنا معقول هاي وحا ku sheegayaan saaxiib videoga iyaga waxaan ka codsanaynaa inaad like noo saarto soo kala barteen youtube-ka isla cabdalla daqtana subscribe ku samee wax xushmad iyo codsi aan ka codsanayno eemaha waxaan ku leenahay qasab noogu saar waad ku maasantahay saaxiibkayga qiimaha badan oo daawashada muuqaalkan Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa waqtiyo badan ku soo bandhiga baraha bulshada jacayl inba sawir jacayl ah saadalkan horteeda ka arkaysan ama sawirka ka muuqata waxay soo bandhigaa sawir jacayl ah amba iyaga oo isku dhoola cadeynaya isku faraxsan kuwaasi oo hay ka muuqato calaamadii jacaylka dhabta ah inkastoo Soomaalida lagu eedeeyay si wax jacaylka ka saabsan qoomba balse iminka ahaan waxay ku midoobi doonaan ama dhulka qaybsan doonaan magaalada Washington ee caasimada arigaasi Mareykanka halkaas oo hay muddo badan ku noolay Hodan Cabdiraxmaan oo kale ahaan markay xagga jigto iyadoo oo siilay haddana iska bal aan ugu noolay balse haatan waxay sheegayaan dadka ugu dhowdhow ama ilaa wariyahan helayna inuu helayo baasaboorka Mareykanka halkaas oo waqti badan heestii xitaa ugu dambeysay soo qaadayna ay dad badan ka dhigeen inuu baasaboorkii uu sugayay uu leeyahay baasaboorka la soo dhaqso heestan oo dhagmeysay soo dadaal deeqday maanke soo dadaal taasi oo ay wada qaadeen sanadkii tagay dabayaaqdiisii ama timiisa sanadada bishii July meelaas halkaas oo heestaas baraha bulshada aad u gilgishay oo noqotay hees ay Mursal Muuse mar labaad dhaawac u geystay balse waxa isweydiinta mudan ee dhagax ka kacayso Soomaali badan amba milyanka doolar kacayso waxay tahay maxaa Mursal Muuse dacaayad daba dhigay amba ay tahay dacaayad fooshaxul ee aw dhexda ugu jira markasta waxa looga jeedaa waxa uu ka tagay gabadh oo wuxuu raacay gabadh kale misana waxa looga jeedaa Mursal Muuse waa qof bilaadamiir ama waa qof miskiin ah oo aan si weyn dadka uga soo dhex muuqan taas ayaa isweydiinta mudan bal saaxiib waxaan ka codsanaynaa daawada inaad comment-ga noogu reebto adiga aragtidaada iyo sida aragto Mursal iyo Hodan Cabdiraxmaan ma waxay kaliya dadka dheeryihiin inuu ay ka qaatay khatartinimo mise waxa jira wax kale oo lagu eedeynayay Hodan Cabdiraxmaan sidii Fihima oo markii ay la joogtay in saygeedii hore ay qadar Fihima oo reesan dhaarka ay ku nool Britain ay markii qadar la joogtay aad looga oran jiray amba loo soo qori jiray eeyahay ka qarxanto taasi oo iyadana gabi ahaan ka abuurtay warwar iyo calool xanuun ma sidaas oo kale ayaa iyadana Hodan Cabdiraxmaan laga dhigayaa maadaama iyadu ka daaweynayeen isku daayihiin Mursal ama uu ka weyn yahayba base wax kale ayaa jira bal saaxiib comment-ga noogu reeb waa taa arrinta lagu wareysanayo comment-ga noogu reeb marka ku maasantahay daawashada muuqaalka saaxiibkii qarqor